hooyo Soomaaliyeed ayaa lagu soo waramayaa in ay maanta oon dartiis ugu dhimatay tuulada Maansa ee degmo baarlamaaneedka Tarbaj iyadoo isbuucan gudahiisa barasabka ismaamulka Wajeer Axmed Cali Mukhtaar uu daha ka furay gawaarida biyaha oo loo yaqaan waterbuses. haddaba qaar ka mid ah waxgaradka Wajeer oo shir jireed ku qabtay gudaha magaalada ayaa warbaahinta u sheegay sida tan. waxa la yiraahdaa Axmed Kutaab Cabdi waxaan ka mid ah odayaasha Tarbaj. waxaan rabaa inaan kaga tacsiyo geerida maamada ku timid oo maamada oon ku dhimatay oo Maansa aad baan ugu xunahay. waxaan la qabaa ninkii saaxiibkay oo hore u hadlay runtii waxaa jirta abaar aad iyo aad u dhib badan dadka reer Tarbaj khaasaan xoolihii waa ka soo guureen dhib fara badan ah haya maatadii iyo dadkii kilaxa ku helay magaalooyinka yaryaraay runtii waxaa taala khatar aad iyo aad u fara badan ku soo fool haysa macluula ku soo fool haysa dadkii gaajaba ay u biihayaan wax ka warqabana ma leh runtii tuuliyaalka hadda la sheega oo Maansa ilmayd in ka soo biyo qabta iyo tuulooyinka ka koreeya oo Buurmiyow digdiga Ogoraala matqana kaba duulo gunaana tuulooyinkaas kulli waxa ka jira dhib aad iyo aad u fara badan. waxaa ka jirta abaar ba'an xoolihii waa ka guureen dadkii da'da ah oo meesha ku heray ilmihii yaryaraay iyo dadweynihii kulli waxaa haysa macluula haysa waxayna u dhamaanayeen gaaji oon. runtii dawladdii county government iyo national government wax ay ka qabteen ma leh abaaraha iyo waxaas oon fara badanaa meesha ka jira. waxaanu maqlay ninkii MP-ga xogoo labadoo gaari iyo wax diriyaan maqlay kuwaasna dadku ma filna runtii waxaan dhihi lahay dawladda county government waa gaabisi ka imaaday waa ward Elben oo la yiraahdo Buurmiyow. maamada dhimatay Allah u naxariisto maamadaas waa dhimatay Allah u naxariisto oonay u dhimatay waxa ka sii daran mid soo socoto oo xali aan waxaan u maleynaa 10 saacan ka soo baxay meeshii la yiraahdo Buurmiyow berg waxay ku sugunta Allah waxlan ilaa Ogoraale digdiga meeshaas aniga colaadin keenay waxaan u maleynaa waqti dhow aan meeshaan imaaday. meeshaan markaan imaaday biyaan soo jiri xafiisi waa tagay xafiisii waxa biyo oo ka jira waan ka waayay qayr Allah siiya nin Cali baashana la yiraahdaa gaari hal biyo ahaan maalinta ida ka heri county reebka Sarmaan ay ugu deeqay gaari kale ugu daray waqtiga iidaana waxa laga joogaa 15 biri waa isaysin wayni dhaadhow waxaan aaday waxaan bari ula kacay Madheera gaari ka imaaday oo county Madheera ka imaaday aan bari dhaadhow on dhayaalmani gaari biyahan la siiya gaariga biyaha nimankii reer Madheera hal gaari ay siiyeen oo ku soo shubay meeshii la yiraahdo digdiga dibkaas Wajeeras ka taagay oonkaas qofkaas u dhintay 10 kala berga ku sugan meeshii hadda aan ka imaaday oo Tarbaj Greshin oo baashi maxaayad digdiga iyo Buurmiyow. markaan anigu waxaan ku dhihi karaa odayaashii hortay hadashi oo county-da hoodeeda aqaanti aniga nin reer Baadiyaan iska hay oon una soo cararay odayaasha hadda hadlaysi warka ay sheegan waa war jira oo alla magana saaki geero ku sugan oo hataa ka sii daran macluusha saaki ka jirta dhibaatooyinka tuulooyinka laga soo guuri oo laga soo hayaamo abaarta ahayd baahida ka jirta dadka waayeelka amana alla magana tabarta yaray wallahi saaki habeen dambe wax la noqona alla og dawladda county-da waxaan ka baryeynaa si degdeg ah biridan hadda la gaari waayo dadkaas biyo ugu horeey nolosha waa biyo hadda nolol la gaari waayo dhibkeeda kan ku kuweynay imaada. waa Jibriil Cabdullaahi waxaan ahay nin reer Wajeer ikhwaani fillah waxaan rabaa arrin yar oo dhacday shalay ka dhacday meel la yiraahdo Maansa oo dhacda deegaan baarlamaanka Tarbaja in qof haweeney as uga dhintay haraad ama oon nin walba saas u yaqaana. waxaad ogsoontihiin waxaan leenahay dawlad ismaamul dawlad goboleed Wajeer county government la dhahaa oo soo gashay 12 bilood 9.4 billion budget 9 bilyan iyo 400 milyan adduun lacageedoo dhan soo gala county-ga Wajeer 12 bilood oo kasta. waxaa la yaab oo nasiib darre
in asqof reer wajeer maanta oon u dhinta waa wax la yaab leh oo ceeb waxaan u diraa gafanaha baaq mudane Axmed Cali Mukhtaar Weerar walaalow xilka aad haysa ilaahiga subxaanahu wa tacaala oo ku abuuray oo ku qalqay ugu baq war qabrigaada iyo cibaadadaada iyo awlaadaada iyo noloshaada u tur ilaahay ka baq wax kasta oo wajeer ku nool hataa quraanjo maanta haddii dhib soo gaara adiga wax laga weydiinaa biilaanta maanta waxaan arkay hooyo biilaan u dhimatay u geeriyootay oo ku geeriyotay magaalo la dhaha Maansa oo 5 kilomitir idoo lugaynayso ay dhacday way dhimatay qabriga la qodaa biyihii lagu duugi lahaa la way meesha waxaa jooga laga soo doortay MCA waxa laga soo doortay governor waxa laga soo doortay women rep waxa laga soo doortay MP resources ki loo keenay dumarka in maartay lagu caawiyo oo biyaha ay meel fog ka soo darayeen in biyaha loo soo dhaweeyo oo gurigan hawl kale ka qaban karaan oo bulshadana dhisi karaan biyaha abla laahay hadii biyahana waa nolosha barkeed water is life biilaan haday dhacda nolol miya taala waa maya but that is now an emergency and it's a disaster hooyo biilaan u geeriyootay qabrigeedna wax lagu aasalay oo biilaan loo aasalay Xasan Ayman telefishinka Alfa ismaamulka Wajeer